ciyaartooyda akademiyada suuqyara ee ka dhisan degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaan ku booqanay tababarkooda iyadoo weli kooxdani ay ka mid tahay kuwa ugu awooda badan degmada Xamar Jajab. Akademiyada suuqyara waxaa la aasaasay sanadii 2017 iyadoo ay ka soo baxeen ciyaartooy kala duwan oo guulo ka gaaray xirfadooda kubadda cagta, xirtayna maaliyadda kooxaha kala duwan ee ka ciyaara horyaalada dalka si la mid ahna qarankeena Soomaaliya matalay. waxaa ka mid ah xidigii akademiyada suuqyara ka soo baxay Cabdiraxmaan Siisay oo qayb ka ahaa xidigii xulka 17 sano jirada qarankeena Soomaaliya guusha la soo gaaray waxaana ka tirsan yahay naadiga ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee Heegan. Maxamed Cali Axmed waa aasaasaha macalinka ciyaartooyda akademiyada suuqyara waxa uu fariin u diray bahweynta sportska dalka. magacayga waa Maxamed Cali Axmed tiimkan waxay ka dhisantahay degmada Xamar Jajab waxaan u aasaasnay kadib markaan aragnay baahi badan loo baahan yahay in ciyaartooy ka soo baxaan degmada Xamar Jajab ayaan u aasaasnay kooxdan. waxaan rabnaa inay ka soo baxaan ciyaartooy matalaan heer qaran waaba ka soo baxeen hadda xulkii guuleysanay ayaa ciyaaryahan kamid ah tiimkan ka soo baxay xulka qaranka kula soo guuleystay koobka. hadda rajada aan leenahay waxay tahay inay professional sii noqdaan inkastoo ciyaaryahankaas oo Heegan u sii ciyaaro oo qaranka kula soo guuleystay koob waxaan rabnaa ciyaaryahankaas ciyaartooy ka si fiican inaan soo bixin insha Allah haduu Ilaahay raali ka noqdo. meesha waxaan rabnaa uu faa'iideysnaa qooj u hambaliyeeyo jiilka soo baxay Soomaaliyeed sida u garab taagantahay mar walba agabka u siisid ina kaaga hambaliyay waxaan rajeynayaa in hadda noqono tiimka ugu horeeya oo ku soo hambaliyay laakiin garab istaagaaga u baahanaa anagana insha Allah haduu Ilaahay raali ka noqdo waxaan soo saari doonaa ciyaartooy qaranka metelo Zaraa'e noqdaan inkastoo anagoo nala garab istaagsanin ciyaartooy qaran metelay oo guulal keenay aan soo saarnay haddana Janal Daawud ka metelayeen guulal ka dhaliyeen hadda jiilkaana u jeedin dad badan ku jiraan oo fursado u baahan in la siiyo insha Allah haduu Ilaahay karaan noqdana garabkiina waa u baahannahay inaad garab istaagtaan insha Allah. qaar ka mid ah ciyaartooyda akademiyadan ayaa dhinacooda la hadlay ciyaar bile. tiimkan waxa urjinina inay horumar hadaf inay meeshan ay u maani insha Allah meesha aad waxa ka rajinina inay ciyaartooy fara badan talent in laga soo saaro xiriirka kubadda cagta waxa ka codsanayna inuu ciyaartooy fara badan meeshan way ku jiraan inay hal mar chance ay nasiyaan almitidiina iyo wax qabadkeena aan leenahay inay meeshan yani ay u gaadaan garoonkan waxaan ula qaadaa 8 dooraan ula qaadaa waxa imaana 6 saac meelaha imaana 12 saacna waa ka tagnaa almitidiina waxa walba ku imaana balooni ku ciyaarna qof ma dhaqaalay waxa oo nasiinaa ma jiro ma haystaan garab istaag buuxa balse kama aysan rajo dhagan inay noqdaan ciyaartooy waaweyn oo anfaca dalkeena Soomaaliya.